xanaaqa marka uu kaa bata naagaha ha tumin sida loo tumo ximaarka oo kale. rasuulku aad buu ula yaabay sala allahu calayhi wasalam. ma tumaysaan ka jaldilcabdi buu yidhi, sida addoonka loo jeedaleeyo oo kale fiidkii hore. fiidka dambena ma waxaad la aadaysaan firaashka? waa shay caqli xumo ah, sidaa ha yeelina. garaacitaanka aad garaacaysaan yuusan noqonin mid feerka jebiya, mid laf baabi'iya, wax dhibaato gaarsiiya. wejigana ha ka garaacina ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. rasuulku markuu tilmaamayay dumarka sida ay yihiin iyo daciiftinimada ay qabaan, rasuulku wuxuu yidhi markaad garaacaysaan ha garaacina garaacitaan xoog badan, ha habaarina oo walaa tuqabixa dhihina. waa shay aad i aad u dhibaato badan, ama wejigeeda aad habaarayso dhibaato aad gaarsiinaysa ha samaynina. sidaa ayuu rasuulku yidhi hana ka garaacina wejiga, ilan waa shayga ugu qiimaha iyo wanaagga badan. allah loogu sujuudaa, bani aadamka lagu qaabilaa, waa xubinta ugu qiimaha badan ee bani aadamka uu leeyahay. sidaa darteed ayaa mamnuuca in la gubo, ayaa mamnuuca qofka in laga garaaco, ayaa mamnuuca in dhaabac laga gaarsiiyo xaaladahaasoo dhanba. sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi garaacitaanka aad garaacaysaan ha ahaada garaacitaan aan dhibaato iyo shaaq iyo dhib aan markaa gaarsiinaynin.